بينيلوسكا سيد واركتام والله الحين كستو علوسة لكن أنا بنسود وينيا شقاء علوسنا كله وين وسوق ثاني جود إلى شقين دون إن شاء الله وحرجين إن ما أنت تلاذ ماشي طالعين كقادنا ومال مارت بريت ولا لا عم بقاضه ودمان بالمجعون يحسوس أي كسر هذا إن جينا ما أنت دوتين جاليتين رفق عمر ودنا ذن بينيلوسكو ليدر هرم مشيرين واد بالوقت لتاسنا waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa adeer Cabdullaahi oo gubashii quruxda badneed ee maanta ay ku dhacday in Rafiq Umar ay mar uun bar wax ku yagleelaan si cagaha isugu istaagtay jaaliyadan waqtiyo badanna kulanna ay dhaceen caadi aan ahayn oo la kaxba ku hirgelin laakiin aan insha Allah anigoo shacabkayga iyo Ilaahay iyo shacabkayga kaashanaya waxaan rajeynayaa inaan hawshaasi aniga iyo hawlwadeennada ila shaqeyn doono insha Allah walaalkii Axmed kamid yahay inaan ka soo baxno si fududna aan u gudanaa tirada waxaa la idin magacaabay idinkoo shan qof ay leedahay magacaabay maamulka sare marka maxaa damacsantii inaad talaabada kubadda qaadaan والله تلاقوا waxaan damacsanaa koow bar inaan ummadan isku xirno koow iyagu siday u midoobi lahaayeen waxna u wada qabsan lahaayeen marka iyagu ay wax noqdaan haddana bal inaan talaabada labaad isku dayno inaan ku abaabulo qaabkii ay dadkii ay ka soo jeedaan ama deegaanada ay ku saleysnaayeen u maalgashan lahaayeen u geysan lahaayeen volunteerian ama xaq waxbarasho ama xaq caafimaad laakiin بربرت أما مهمة الكوباد وحنا نصيننا إن أيجا مركور كودا دبعتسن كودا حنوسن كودا ماركتي أن ميلت علاج شو بسيدي كونتاكت لحد ونقل لهاين وحنا سمين دونا شرار بدن أنا أيجا سجونه وراح ليره مركا وحنا رجينا مركور إن أنا أيجا سلك وقت كينو مركا أي تودا طريقة لا بيتكانوا وحكمانه يعني مركا أنا نصاص طلعوا كسيقنا ترى. أوكي ما أنت وحايد ونصدق خلوا وضمن الإسكندرية فين كان عايز جاليد مقعدين أنا خلوا وضعها سيد وارك تاني ذا. جاليد أس كونتاكت في عم بنا قد حياة مدن إبراهيم قدوميها جاليد تسحرير بعصاميني أنت كار مقع أنا أباب الكوتشري معمول كجاليد هذا ما أنت وارد سي معمول كمل قاعد أيام لنا جاليد بنلوجس رفق عمر وذا شقين على بنا الأحمر دونت أيجنا طلابة ما أنت كوتشري صامرين لكن ما أنت وحي وجود من مدي عجها علىك يكون استاجين أيجا نهار عالمي كان جاي سيدا أحمد عرب مانت وحلقو دورت بدون كحيان كجاليدها بلجيم iyo Holland oo halkan maanta shirkoodu ka dhacay doorashadaas adiga lagu doortay gudoomiye xigeenka sidoo aragta doorashada aniga la doortay gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkayga ay doorteen aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan rajaynayaa say doortaan ay la shaqeeyaan maxaa ugu horeeyo isleeyihiin aad qabatiin kulli waxaan oo qorsheysanayno qorshe badan meesha noo yaala oo aniga kooxdayda oo tiimka la shaqeyn doona balansanahay iyo waliba maanta qoladina dooratay jaaliyada qiimaha badan aad iyo aad ugu mahadcelinayo waxaan rajaynayaa arrimo badan oo noo yaala inaan halka ka sii ambaqaadi doono oo heerka aan taaganahay maanta heerka sareeya waqti dhow aan gaari doono marka si fudud waxaan ku oran karaa maanta gogoshan iyo kulankan meesha ka dhacay kulan aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa kulan naga soo shaqeeyay waxa waqti badan la geliyay aqal badan ayuu ahaa dhammaan waa mahad celinaya waxaan rajaynayaa 6 bilood ka bacdi inaan kulanka balaarno soo iman doono oo ku dhameystiri doono hawlaha inta nooga dhiman tan maanta asaas iyo bilow wanaagsan bay ahayd insha Allah waxaan rajaynayaa bilowgaas inuu noqon doono mid midho dhala oo horumar u horseedo ummadan aan ku soo jeedno iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dadka islaamka oo dhan gudoomiyaha iyo gudoomiye xigeenka in la magacaabay garanay guddi kale oo la magacaabay mashri waxa jiray laba guddi baa la magacaabay guddi shan xubnood ka koobnaa oo ahaa shanta golaha sare lagu magacaabay oo leeyahay gudoomiye xigeen afayeen iyo qasniji iyo xoghayn iyo guddi kale waxa jiray leeyahay khilaafaadka xalinta oo iyaguna shan ka koobnaa marka labada maamul ayaa meesha lagu doortay maanta marka labadiiba si habsami leh ayay maanta u dhacay marka aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa maanta labada maamul ee la kala sameeyay shanta gudoomiye ugu horeeyay iyo shanta khilaafaadka xalinta bana si isku mid oo wada shaqeyn doonaan ayaan rajaynayaa waan ku faraxsanahay labada qaybood buu ahaa maanta maamulkii la magacaabay haddaan dib u yar laabano hawshani ma hawl maanta u bilaabantay mise hawl muddo soo socotay xaqiiqatan arrintan maanta bilaabatay maaha oo arrin hore u soo jirtay weeyaan oo hadda imka muddo laga joogo 2 sano ka hor ayay waddanka Belgium ka dhacday waana kulankan oo kale la isugu yimid laakiin kulankan wuxuu ahaa kulankii labaad ayuu ahaa kulankii hore baa halkii laga soo qaaday marka ma ahayn kulankii ugu horeeyay waa kulankii labaad waxaan rajaynayaa kulamo kuwan ka badan inay iman doonaan future ka soo socda insha Allah waad mahadsantahay على كعب واهبو شركوها جوجاني